السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qaaliga ah channelkay kusoo dhawaada waan salaamay dhammaan adduunka meel kasta ka joogtiin haddaa channelkan ku cusub tahay soo dhawow qalbi furan gacmo furan soo dhawaada insha Allah don't forget to subscribe like share and comment channelkan waa channelkiina insha Allah soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ila qaybsado sidaan u suubinooyo qadadan aad u macaan badan hadda dabka waxaa ii saaran oo ujeediin lamb chops waaye oo waxyaabo badan mariyay maasha Allah oo marinade ku suubiyey oo falinjeerka geliyey oo ilaa hal saac camal oo ku jiray maasha Allah waa sidaan inoogu soo baxday the end caraftiisana maba laga sheekeyn karo maasha Allah daarad bariisa ku cun kartaa ansalaato mashed potatoes potato maraq camal loo suubsadaa different ways loo suubsadaa lamb chops maasha Allah waa cunto oo middle eastern so marka waa kaas ayaga u badan cuntooyinka camal iyo qudaarta maasha Allah sometimes waa suubsadaa markuu niyadda iga soo galo aad u macaan badan tahay maasha Allah marka sidaan u suubiyay arka intaan wax waaye insha Allah marka isku dar rabaa qudaartii oo dhinac laga saar lahay waaye waxaan iyo spiceska oo ku dar lahay hilibka mari lahay sida marinade u noqoto oo gudaha ka gala yacni macaanka xagga waxa ay taalo kabsar caleen iyo qajaar yaanyada yaryariska cherry tomatoes waaye parsley filfil xawaaji dhudhub oo shiidan waaye kan cusbo basbaas intaas waaye isku dar rabaa intana fresh parsley waaye kana parsley oo dry waaye intana olive iyo cheese isku dhex jiro iyo qudaarta lagu cunayo waaye insha Allah waa kaas lamb chopki hadda waxaan ku daraa olive oil bool yar ku shubayaa kaas cusbaa ku daray waxaan dhan nus qaanta camal waaye xawaajiga filfil parsley oo dry basbaas kabsar caleen iyo tuun waaye kanne oo la isku soo tumay waa kaas intaana saan isku qasoyaa of course liimo dhanaan half oo liimo dhanaan waaye waa kaas sidaan isku qasoyaa maasha Allah carafta waa yaabe intaa markii la isku daro macaankana waaba kasii daran yahay marka hadda waxaa rabaa inaan dhex geliyo waa kaas hal u gelinaa kulli waa wada deeqaa kastaan yar ujeediin maasha Allah waa kan waa wada soo mariyey bacaa rabaa inaan ku daboolo markaas oo falinjeerka geliyo ilaa hal saac intii oo yacni bariiska karsanaayo iyo qudaarta kasii diyaarsanayo kale intii alaas dhan marinade oo noqonaa insha Allah xir kadib hadda waxaan jarjaray basal qajaar liimo dhanaan intii fuulo iyo waa kanay mix oo olives waaye kan diyaarka waa isku dhex daray kabacdi kor le ugu shubaa olive oil wax yar waa ku yar yahay so olive oil liimo dhanaan iyo waxaan ku daraa cusbo iyo filfil yar qudaar oo full of vitamins waaye maasha Allah aadin u macdahay markii saan iskugu daro waa saladkii oo dhinac loogu cun lahay so marka waa kaas cusbadii iyo filfisha waa ku daray waa kaas olive oil maasha Allah waa kaas caadi ma ah maasha Allah so marka asina bacaan ku daboolaa falinjeerkaas kasii gelinaa hadda bariis oo fudud asuubina waa daarad bariis cad waa ku cun kartaa wax yar kale lagu daray bariis oo waxyaabo badan ma u baahno noocan so waa mid easy
hadda inta saliid yar ku shubay saliid cadeey. marka waxaa rabaa inaa oo karooto waaye oo jarjaran, karooto iyo maxaa la dhahaa basal aa rabaa inaa saatee ku suubiyo wax yar. digsigii oo bariis ku kari lahaa le waaye, wax yar saatee ku suubinaa and then waa ka bixinaa. bariiska maku kari rabay kan koraa laga saaraa hadhow. marka wax yar saliida dabkaad ku gaduudinayaa just asi iyo sabiibka also. intaan hadda maasha allah caraf aad iyo aad u carfaysa maasha allah caadi ma aha yani. markaas wax yar kabacdi waa ka bixinayaa. isla digsigii le waaye haddana bariiska wax yar ku dalacaa. spiceski yar oo soo diyaarsanaya ku shubaa asina. markaas biya ku shub rabaa next and 2 cups of water. hadaa chicken stock haduu ku yaalo ku shuba kartaa. markaas markay soo karkarto cusbadiisi wixiis dhan ku jiraa dhadhankii bariiskii ku daray hadda. marka markii waxaas dhan kariye hadda waxaa la gaaray waqtigii oo halkii saac waa la gaaray oo dub lahay the lamb chops. si dhaqsiyo ku karsamaa maasha allah kuwaan because waa hilib jilaac ah. spiceskii mariye toontii wixii dhan kasoo carfooyo maasha allah caadi ma aha. ten minute camal loo qaadanaa sidan or less. marka waakas kor markay aragtid saan uu soo karsamo gaduud ka baxo marka well done oo noqonaa. waakas marka it's almost done. okay hadda waa diyaar maasha allah sidaan inuu soo baxday. bariiska waa kaas qudaartii iyo hilibkii waaye maasha allah. markiis waxaa ku shubayaa toon parsley oo fresh ah iyo saliid oo la isku soo shiiday waaye, cusbo iyo liiman oo ku jiraa. marka intaas isku soo shiiday. I hope inaad ka faa'iideen insha allah.